السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناسن رمضان الكريم تاريخ maanta waa 2020 bisha shanaad 2020 keeda qodobada warka maanta aan idinku haynana waxaa ka mid ah sarkaalka goosadka ee xaftar lagaadka dagaalka Liibiya muslimiinta ku dhaqan wadanka India oo dhibaato dhaqaale ka sheeganaya xanuunka COVID-19 qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah South Africa kaangariska dadka loo yaqaano kuwaas oo qaybiyay dadka masaakiinta cunto iyo raashin qodobada kale aan idinku haynana waxaa ka mid ah wadanka China oo baroordiiq loo sameeyay dadkii ku geeriyooday xanuunka COVID-19 intaas oo qodobada warka ku doorka roon ku soo dhawaada warkaas oo fidsan Initiating system 1. System 1 loaded. sargaalka goosadka ee xaftar iyo xulufadiisa uu ka mid yahay dowladda Sacuudiga Imaaraadka Carabta dowladda Ruushka iyo dowlado badan ayaa laga adkaaday dagaalka Liibiya dowladda oo qoonsan tahay qaramada midoobay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli oo caawisa dowladda Turkiga iyo dowladda Qatar ayaa kaga adkaatay 12 magaalo ayaa laga saaray ugu muhiimsanaa ugu dambeyntii shalay Khamiistii waxa laga qabsaday magaalada Al-Asaba taas oo ku xoogaga xaftar dhinaca kale haddaan eegno dowladda Hindiya muslimiinta ku dhaqan magaalada Delhi ayaa ka cabanaya dhaqaale xoogan oo soo wajahday kadib markii uu xanuunka COVID-19 si xun u saameeyay waxaana ugu badan dadka muruqmaalka haddii aan eegno xagga iyo Koonfur Afrika dadyaga ku dhaqan Koonfur Afrika ama loo yaqaano gaangariska ayaa ku soo caawiyay kumanaantan oo raashina dadka danyarta ee ku dhaqan Koonfur Afrika maanta oo Jimco ayay soo gaarsiiyeen kumanaantan dadka faqiiriinta ee ku nool Koonfur Afrika haddii aan eegno iminkii xagga Chinaha wadanka Chinaha kadib xanuunkii COVID-19 ee ku habsaday waxaa dib loo furay xarumihii ganacsiga iyo meelihii la isugu iman jiray intaba maanta oo Jimco ahayd madaxweynaha dalka Chinaha ayaa ka qayb galay shir la isugu yeeray golihiisa baarlamaanka kaas oo baroordiiq loo sameeyay dadkii ugu dhintay xanuunka COVID-19 dalkaasi Chinaha dalka Chinaha ayaa ahaa dal xoogan xagga dhaqaalaha iyo xagga awoodda militariga intaba balse waxa la sheegaa intii uu xanuunka COVID-19 ku dhacay laga soo bilaabo 2019 iyo iminku ay tahay 2020 inuu dhaqaalihiisu hoos u dhacay balse waxa loo sameeyay dadkii ku dhintay COVID-19 dhowr daqiiqo aamusnaana halka ay noo joogto qodobadii aan idinku haynay wixii war naga soo gaadhay dunida caalamka intan ku kulmi doono mid lamida waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ramadan Kariim Initiating system 1. System 1 loaded.